السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulantu wacan oo wanaagsan daawadayaal, waxaan rajeynayaa inaad fiican tihiin. Intaa kadib waxaan rabaa inaan maanta ka hadalno aayad ku saabsan ama aayad ka hadlaysa cilmiga maqaarka si dhammaystiran weliba, iyadoo aayaddaas aad is leedahay maanta may soo degtay, maadaama cilmiga maqaarka uu yahay cilmi dhow oo mar dhow daaha laga rogay, laakiin aayaddan ay soo degtay 1400 sano ka hor. aayadda waxay leedahay in aladiina kafaruu biaayaatina سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. آية waxay ku jirtaa في سورة النساء waana aayadda 56. sida ilaahay quraanka nooga warramay aayaddan nooga hadlayso waxay sheegaysaa in qofka ilaahay rasuulkiisa beeniyay maalinta qiyaamada la cadaabi doono, taasoo macruufa oo dadka oo dhan ay fahmi karaan. marka waxaan ka hadlaynaa taas maaha maanta, waxaan ka hadlaynaa qur'aanka wuxuu leeyahay ijaaz iyo mucjizooyin fara badan baa qur'aan ku soo aruuray oo aan 1 iyo 2 ahayn oo maanta haddaan dhahno waa barbaarin aan laga daba gaaraynin. laakiin bal aayaddan waxay sheegtay in gaaladu maalinta qiyaamaha markii la cadaabayo oo haddii ilaahay ku samadeeda naarta lagu qoro oo si xun loo cadaabi doono, in maqaarkooda oo intuu dhalaalo mid kale loo samayn doono. muxuu yahay maqaarkan la sheegaayo? maxay tahay sirta ku duugan arrinkan? marka aayaddan waxaad moodaa inay keligeed hal xeraalooyin ku xiranayso dadka aaminsan waxaan islaam ahayn. ina diina cinda allahi alislaam, diin kale ma jirto. marka insha allah mawduuceena aan galno. dhaqaatiirtaas cilmiga maqaarka ku takhasustay waxba kama aysan ogeen 1400 sano waxa aayaddan ay ka hadlayso, waxba lagama aqoon. marka tusaalooyinka qur'aanka ku soo arooray intooda badan naloo soo qaadanayo oo wadaraba allahu qur'aanka uu ku soo mar walba ay ku soo noqoto wadaraba allahu mathalan daraba allahu mathalan, waxaasu mucjizooyin ayaa ku du'aasan oo loo baahan yahay inaan mar walba markaasi isdul taagno oo aan isku tadabburno. ma ahan wax oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iska soo qaadanayo. marka aayaddan ku soo laabano, aayad waxay leedahay كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. mar walba oo maqaarkooda dhalaalo oo baaba'o waxaan ugu soo bedelnaa maqaar kale oo ayaan soo bedelnaa. oo maxaa macnaha muxuu ilaahay u dhihi waayey markuu maqaarkooda dhalaalo? muxuu ugu ekaysta u dhihi waayey markuu hilibkooda daato? muxuu u dhihi waayey markay baaba'aan? muxuu u dhihi waayey markay gubtaan? maxaa si gaara maqaarka loogu cayimay? waa macnaha su'aal u baahan inaan isweydiino oo aan ku tadabburno. sababtu waxay tahay maqaarka waa halka laga dareemo xanuunka oo dhan, waana xarunta isku xirta xanuunka iyo qofka bini'aadanka waayo. taasaana keenayso in markaasi loo soo qaato tusaalooyin loo soo qaato, taasaa keenayso. marka waxyaabo fara badan ayaanu ku aasan. haddii aan maanta dhahno cilmiga maqaarka keligiis baan ka hadlaynaa, waxaa laga yaabaa in macnaha muuqaalkan uu noo noqdo markaasi mid dheer oo haddii ilaahay ku samadeedna saacada ka badan inuu noqdo. cilmiga maqaarka keligiis waa ka hadlaynaa. marka ma rabno inaan ka hadalno xaqiiqooyinka marka ku saabsan maqaarka. haddaan ka hadalno, kow, maqaarka waa xarunta ama xubinta ugu weyn ee jirka bini'aadanka ku jirto. haddii lagu yirahdo maxay tahay xubinta ugu weyn jirkaaga, cala duul ha ka sheekeynayna. waa saynis ahaan, waa cilmi ahaan, waxay leedahay waa xubinta ugu weyn jirka bini'aadanka. number 1 maqaarka waa. waxyaabaha kale gaarka la yahay maqaarka waxaa ka mid a oo la dhihi karo tusaalooyin in loo soo qaato waxaa keeni kara waxay tahay wuxuu leeyahay million and millions oo dareemayaala oo laga dareemo xanuunka, lagu dareemo qabowga, laga dareemo taabashada, lagu dareemo haddii ilaahay ku samadeeyna qof hadduu si markaasi xoog kugu qabto ama wax kugu dhufto, waa halka laga dareemo. marka uu qof si daran u gubto maxaa dhaca? qof markuu si daran u gubto waxaa dhaco inuu qofka gubto maqaarkiisa oo idil. laga yaabana hadduu dabka sii socdo oo gubasho sii socotana inay sidoo kale ay dhici karto inuu qofka asagoo dhan jirkiisa gubto ay dhici karto. laakiin qofku waa laga yaabaa inuu sii gubto uu dabkaas haddii ku sii jiro ama sii jiro gubashadaas, walaakin qofku ma dareemo haddii marba maqaarkiisa lasoo dhaafo. because maqaarka waxaa la sheegaa dhowr nooc inuu isku ka kooban yahay, dhowr waxyaabood oo isdul saaran lakabyadaas. markuu soo dhaafo dabku qofku ma dareemo. marka su'aasha waxay noqonaysaa haddii halkan ilaahay subxaanahu wa ta'aala uusan nooga warrami lahayn aayaddan aysan quraanka ku jiri lahayn, quraanka waxaa ku jiri lahaa
controversial inuu yahay ayaa markaas soo bixi lahayd. Number 1 waxaa cadaan lahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa inuu ku yidhi khaalidiina fiiha abadan ahlu naarka inay noqon doonaan say ku dhacaysaa haddiiba qofka macnaha haddii caqliga uu sheegayo qofka markii la gubo inuu baaba'ayo isagoo dhan khaalidiina fiiha abadan meesha way ka baxaysaa. si marka qur'aanka uu markaasi controversial u noqonin waxaa ku taalla aayaddan mucjizada subxaana wa tacaala ilaa weyne uu ku leeyahay maxaa kulamaa nadija juluudahum badalnahum juluudan kayraha see marka macnaha sababta maxay tahay oo maxaa la dhihi karaa maxay tahay sababta arrinkaas loo samaynayo wax kale maahan waa liyaduuqa alcadaaba in allaha kaana casiizan xakiima waa cadaabta inay dareemaan marka aayadda qaybteeda in allaha kaana casiizan xakiima maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa talow macadaala dara in gaalada macnaha la cadaabo maadaama ay idilay ku samadiidina dad bini aadan nool ay yihiin oo addoommo ilaahay ay yihiin laftirkoodu ilaahay makhluuqiisa muxuu saas uga cadaabaa soo ma dhici karta in naftaada weydiisa macnaha cadaalad darra maaha miya maya cadaalad darra maaha bal waa cadaalad maxaa yeelay weligood intay adduunyadu ku noolaan inta ay noolaayeen way diidanaayeen xaqa ilaahay subxana taala oo uga warramay way diideen abid ayayna diidanayeen weliba inta noloshooda ay adoo dhan marka arrinkaas waxay keensatay iyaguna abid in la cadaabo ilaahay subxana wa tacaala qur-aankiisa dhinac walba ayuu tusaalaha dadka uga dhigay sanurihim aayaatanaa fi lafaaqi wa fii anfusihim dhinac walbaan ka tusnay aayadaheenna xataa nafsadooda wa fii anfusikum afalaa tubsiruun marka dhinac walba ayaa justificationkooda iyo cudurdaarkooda laga soo xiray sidaa daraaddeed wax marmarsiya ama laha cadaalad ilaahayna waaye in la cadaaba qofka khaalidina fiiha abadanna uu noqdo weliba isagoon dhimanaynin maadaama maqaarkiisa la soo cusboonaysiinayo taasoo ijaas iyo mucjizooyin fara badan ka muuqda inta weliba 1400 sano aayad soo degtan ay ka hadlayso marka yaa u sheegay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam cilmiga maqaarka dadka ku dooda in markaasi qur-aanku uu yahay miduu nebiga qoray ama dad kale ay qorqoreen dadka ku dooda yaa u sheegay 1400 sano xadaaradda maqaarka iyo aqoonta cilmiga maqaarka ma jirina nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam yaa xilligaas uga warramay waa wax lala yaaba maogtahay macnaha caqliga wuxuu diidaa jira mugtogta wuxuu diidaya jira caqliga suuragal maahan marka waxa qur'aanka nooga warramay diil ay ku samadiidina 1400 sano aqoontaas lahaa waa alla weyne subxaanahu wa tacaala oo tusaalooyin naga soo dhigaya dhan waliba xataa wa fii anfusikum noo raaciyey wa fii anfusikum afalaa tubsiruun haddii naftaada keligeed ammaanta ku mashquusho oo aad eegto siduu u shaqeeya aaba macnaha noqonaysa markaasi wax aad la yaabta noqonaysa su-aalooyin fara badan baa ilaa hadda saynisku ku horgudban oo nafteena ku saabsan oo ay tahay inay bini aadamku ka jawaabaan aysan awood u lahayn haddii ilaahay ku samadiina aanan la daliishanaynin ilaahay wuxuu samaawi waxyiga samaawi la sadeegsanay marka calaa kulli xaal insha allahu tacaala mawduucii waa soo koobaya waxaan rabaa intaas inaan idinla wadaago wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu